بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan ku jirnay duruustii ku saabsanayd jaanibka tarbiyada iyo fahamka guud ee islaamka iyo sida islaamku u dhammaystiran yahay iyo sida isugu xiran yahay inagoo kolba dhinac ka fiirinaynay waxaan soo qaadanay arrin muhiim ah oo ahayd qofka salaadaha uu tukanayo iyo soonka uu soomayo in uu asaga yani ilaashado oo aan laga qaadanin oo yani dad kale intuu wax ka sheego ama dad kale intuu dhibo ayna noqonin wixiisi wax ka baabaa sidii aan soo qaadanay ahayd islaantii salaada badan tukan jirtay laakiin deriska carabkeeda ku dhibi jirtay ee nabigu uu yihi khayr malatan wa ahlu naar maxaa yeelay carabkaas ay ku dhibayso dadka deriska ah ayay naarta ku mutaysatay salaadiina waxba umayna tarin marka waa arrin muhiim ah qofka yani adduunka inta la joogo waa daarul camal shaqo ayaa lahayaa waxaa loo shaqaysanayaa in ilaahay agtiisa ajir looga helo naartana laga badbaado jannana lagu galo acmaashan marka inoo diray inaan samayno ay tahay ee waajibka ilahay nooga dhigay iyo wixii kale aan ku darsan karna ama khayraad ama sunno ama samafal ahna ujeedada laga leeyahay waxay tahay qofka inay asaga ay anfacdo ee uusan noqonin qof dad kale u shaqeeyey talow ma dhici kartaa inay jiraan dad daala oo laakiin dad kale u shaqeeya way jiraan oo hadda maalan soonka oo kale ka soo qaad dadaa soomaya way gaajoonayaan way haraadayaan ajirkii ay ka heli lahaayeen ayaga loo dhigi lahaa akaunkooda loo dhigi lahaa yaa wuxuu samaynayaa dhibaatooyin kale intuu geysto oo bulshada uu la nool yahay uu dhib u geysto ayaa soonkii uu soomay ajirkii looga dhigay ee loogu shubay akaunkiisa yaa intii laga soo bixiyo laga soo qaado ayaa qofkii uu dhibaatada u geystay la siinaya qofkaas marka maxaa ku dhacay laba khasaara ku dhacay adduunkiina wuu dadaalay oo wuu rafaaday oo wuu soomay oo wuu salaaday oo yani naftiisa wuu xakameeyey wuu dhibay ajirkii uu ka heli lahaana maadaama dhinacii kale uu dadka wax u geystay dad kale u shaqaynaya taas waxaan ka faa'idaysanaynaa dadka qaar waxaa jira haddii maalan ama la caayo haddii wax laga sheego yani ka xumaanayo oo qofkii waxaas ka sheegay inay ama wax gaarsiiyaan ama caayaan ayay jecel yihiin qofkaas waxaa fiican inuuna saas samaynin haddii intii la caayo asna u caayo wax natiija oo ka faa'iiday ma jirto laakiin haddii qof intii la caayo asaga uu shib iska yidhahdo uusan caayin shaqadiisa khayrka aan uu iska wato khayrkan wixii uu ku helana wuu leeyahay qofkaas kale ee caayay ama wax ka sheegayna ajirkii asaga uu meel dhigan lahaa ee camalkii uu horey usoo qabsaday ah ayaa laga soo qaadaya waa tii xadiidka aad ku aragtay nabig sal ly slam wuxuu ku yidhi dadka atadruuna man ilmuflis ma taqaanaan qofka aan waxbaba haysanin oo yani wixiisoo dhan yani ay baaba ka noqonayaan markaas waxay yihi muflis annaga waxaan u naqaanaa qofkii aan yani dirham iyo alaab iyo waxyaabaha adduunkan looga dhaqmo dadka aan haysanin baan u naqaanaa inay yihiin dad faqiir ah oo yani aad dad kacay yani oo yani sal kacay oo ganacsiga ka baaba'ay oo waxa isku furtaan aan haysanin oo waxba una ka dhicin kuwaasaan muflis u naqaanaa markaasuu yihi muflisku waxaa waye ummadayda qof la imaan doona maalinta qiyaamaha soon iyo sadaqo ayuu la imaan doonaa yani acmaal wanaagsan ayuu la imaan doonaa laakiin wuxuu imaan doonaa isaga oo ya'tii waqad shatama haada asagoo kan caayey wa daraba haada kan garaacay wa safaka dama haada kan dhiig ka daadiyey wa akala maala haada kan maal ka cunay wa qadafa haada kan aflagaadeeyey intaasuu imaanaya markaasa waxaa la samaynaya fa yucdaa haada min xasanaatihi wa haada min xasanaatihi saf intii loo soo galo yaa wixii xasano ah ee meel u yaalay asaga ayaa waxaa loo kala qaybinayaa dadkii uu qaarna caynayey qaarna yani ayaa loo kala qaybinaya haddii wixii xasano ah ee u yaalay ay ka baaba'aan oo laga qaato laga wareego welina ay jiraan dad uu wax u geystay oo soo safan oo xaqi ka maqnaa yani raba in ay ka qaataan maxaa la sameynaya waxna uma yaallo wix baa laga dhameeyey qofkan uu wax u geystay dembi ayuu horey usoo galay dembigii asagaa lagu ciqaabi lahaa asaga ayaa watay asagaa lagu xisaabin lahaa waxaa la samaynayaa qofkan oo wax loo geystay ee soo sabray ee la caayey ama dhiigga laga daadiyey ama xoolihiisa la qaatay ee yani wax ka maqan yihiin dembiye uu galay ayaa laga qaadayaa markaasaa qofkii dembiyadan geystay ayaa korka laga saaraya qofkan marka muxuu faa'iidey wax laga qaaday wuxuu faa'iidey dembi lagu xisaabin lahaa oo laga yaabo inuu naar ku geli lahaa ayaa qofkan kale lagu wareejiyey marka qofkii marka oo mufliska ahaa ee salaada iyo zakada iyo soonka iyo la imaaday tirada badan
xoolihiisiina ajirkiisiina lagala wareegay intaa looguma siminay si naarta loo geliyo dembiyadii dadkii kale ee dhibaatada u geystay intii lasoo qaado ayaa korka asaga laga saaraya. markii korka laga saaro kadib maxaa u soo baxaye dembiye badaan kuwiisii iyo dadkii uu soo yeelay kuwoodii intaas oo dembi markii la isugu daro dembi waxaa ka soo baxaya thumma durixa fi naar naarta ayaa lagu tuurayaa saas ayuu marka naarta ku galaya. marka walciyaadu billah waa arrin xanuun badan oo dhib badan oo loo baahan yahay shaqada aynu qabanayno iyo cibaadaadkan aynu samaysanayno inaynan dad kale u shaqaynin, dad kale inaynan yani aynan wixii siinine qof walbow naftaada ka adkow wixii adigu aad kasbato oo camal saalix ah si aadan yani lagaaga qaadanin dadka kale waxa u geysanin, dad kale ha u shaqaynin, adigu shaqayso adiga oo waxa ay ku dhan yihiin halkaas ilaahay hortiisa inaad tagto oo ajirkaagii adigu aad manaafacadsatid ayaa loo baahan yahay. laakiin haddaad afka furato oo maalinba aad dhinac u tuurto oo dadka aad caysid, qofkaas aad caynayso adoon is ogeyn ayaa waxaad siinaysaa xasanaadkii adigu aad shaqaysanaysay soonkii iyo salaadii ayaa asaga loo googoynaya. maalin aysan shalayto waxba anfacaynin ayaadna ka shalayn doontaa. marka inta fursada la haysto munaasabadahan iyo ramadaanka iyo soonka in laga faa'iideysto, dadka waxyeeleyntooda iyo wax ka sheegoodan hal iska daayo. haddii la iska dayn waayana qofkii aad wax ka sheegtay unbaa wixii aad shaqaysatay kaala wareegaya. darsigan intaasuu ku egyahay. wasala allahuma calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.